الدنيا كرو كما سمعت الدنيا كرو نبض وجد وابن الدنيا كرو كما سنقول مهنيسا الدنيا وحقول قولي جين وكتان دبدا الدنيا وحقو مريك جيرين أما سقا جيسا وهذه يا قرتي والبلوى وكبيلي وهذه يا قرتي والبلوى وكبيلي dadka nagu gadaafiyo dib buu gooniyow yahay gumaca lagu shabaxa bartiyo gowrac joogtaahe gumaca lagu shabaxa bartiyo gowrac joogtaahe kol horeba guriyo way qabeen gaadma kol horeba guriyo way qabeen gowraciyo layne dadka nagu gadaafiyo dib buu goonidow yahay gumac lagu shabaxa bartiyo gowrac joogtaahe kol horeba guriyo way qabeen gacmay iyo layne war maantana biya oogu galay god iyo meel dheere war maantana biya oogu galay god iyo meel dheere waxaa taa guddoonkeeda wan kugu garwaaqsini oo aad ku garan sheeka waa laysu geeyaye ayagoo goday iyo fadhiya gudihii ciidooda ayagoo dantoodun gurtoon gaal waxba u raadsan ka guuru gumaystuhu dhahaa gobolladoodii gayiguu lahaaba shacbigii lagu garaacaye gayiguu lahaaba shacbigii lagu garaacaye kaba gudub giraan loo qoriyo gacan la siiyaye guryahay dhisteen baa bulshadii laga gubayaaye guryahay dhisteen baa bulshadii laga gubayaye waa kan gabawarkoodii batay ee goob xun urura gabaahiire culus baa heshay oo guudka loo suraye goljileecnima laga fahmiyo geed nugaylnimo hadday geesinimo muujiyaan lama gumaysteene magacayga waxaa la yidhaha tabaan qowdhanbare tamakayimid gudaha ogaadinaya gobolka fiiqeed waxaan u qaadan karaa 3 bilood baan joogaa waxaan ku soo jiray ilaa 3 bilood ayaan dhexda gudaha ku soo jiray cadowga kacabsigiisa iyo magaranaysaa si aan uga xidaarisanayeen baan oon u soo socday yaan ku qaatay waxaa dhibka igu qabsaday wuxuu ahaa anigoo beertayda jaadka ahayd iyo reerkayga iska jooga ayaa lay xidhay oo laygu xidhay degmada dhuxun la yidhaahdo kadib waxaa la iigu talagalay in lay gowraco hase ahaatee waxaan sameeyey wax la yidhaahdo gacanka hadal oo lacag baan isku furtay anigoo lacagtiis ku soo furtay oo lay soo daayay oo reerkayga jooga lay soo doontay haddana 3 saac baa marka lay caydhinayay oo xabadu i daba dhacaysay kadib anigoon lacag ka haysan waxaan koobshaa ku cabaan reerkayga soo dhaqaaqay hantidaydii iyo xaaskaygii iyo jaadkaygii baan ka soo tagay inta markaa daba waxa igu kalifay inaan 3 bilood dhexda ku soo jiro dhibaatadaas ay u kaliftay ma taageereen shacab baan ahaa beertiisa jaadka iska ka shaqaysanaya baan xabalay geeyay xerada kawaanka waxaa iga soo qaaday meel xerada kawaanka la yiraahdo oo dadka lagu gowraco oo dadkii aan wadaaqinay mid wax lagu gubay iyo wax lagu gowracay laga dhigay kadib intaan xidhnaa waxaa markaa ninkaas waxaa ii sheegay nin aniga aan markaa xigta ii ahaa oo dabaqoodhiga ka mid ah ayaa iga soo qaaday oo xoog igu soo qaaday kadib xerada booliska u geeyey wuxuu yidhi ninkan wax shaqo ku leeyahay ma jiro kadib waxaan ku yidhi lacagtan hoo gaalada igu si kadib isii daabaan yaan ku yidhi marka intii aan aniga lafteyda aan joogay laygu hayay rag ila xidhnaa horteeda lagu gowracay
dhowr maalmood markaan joogay baa haddana la sidii xidha sidii ma garanaysaa dhaarkasta inta la xidho laaluushka layga qaado ama la ii dilo ayaa layga daba yimid kadib waan cagahaygaan ku baxsaday maxaad ka sheegi gowrac kuwo waxaan la gubay baan yaan ognahay oo la gubay noloshoodiiba intii meel lafoodii xitaa ma garanaysaa aan la arago la gubay yaaba dhuxun ka jiray oo hal nin xitaa sargaalkii gubay baa ilaa alaan ka howlgalaba degmadii wuxuu gubay ilaa dhowr iyo 10 qof buu gubay oo badhu gubay iyo badhu eejiib uu ka dhigay iyo badhu qayb ayagoo nolol uu ku gubay iyo qayb uu dabay iyo kuwa uu binad ku dilay iyo kuwa uu xabad ku dilay intaba way leeyihiin hal waana sargaal kaliya oo caam ah haddana maxaan goobjoog baan ka ahaa u soo joogay baa jirtaba oo waxaan ninnaba wax la yidhi iyo waxaad aragtay baa kalaba hadda tuulo yaroon aan joogayo abeesaal yiraahdaa baa laga soo xidhay waxaa lagu dilay nin walaalkay ah markii lagu dilay kadib waa lay qabtay anigana waa lay soo qaaday tuulo kale ninkii la dilay ayaa waxaa cadceeda intii la dhigay 7 mar baa lagu dhuftay 7 markii lagu dhuftay halka cadceeda la dhigay anagana waa la soo kaxay wixii beeraha jaadka intii la soo gurtaa maalinkii lagu dul qaylay kadib markay 9 saac tahay baa la neela tagay anagii waxaa la nageeyay tuulo yaro xaraarey la yiraahdo tuuladii xaraarey loo oranayay ayaa ku dabaqoodiga kamid ah oo markaa la socda gaalada ayaa waxa la wixii dumar ahaa ee gabadh ahaa ayuu ku marti qaaday markuu ku marti qaaday yaa habeenkii anagoo xidhan cabaadkoodii markaan joog weynay iyo niman naftuurayaal ayaa soo weeraray kadib saasay ku daayeen hadda kulay waxaan horta ogaadeenaya wax loo dhigaa ma jira dhibaatada ka jirta cadawga mooyaan hase ahaatee halkan aan imid naf waxaa la yidhi nafi orday kugu aamintaa baa la yidhi midda kale nabadgelyada wax shay ka qaalisanimay ay jirto hantidaydii iyo xaaskaygii iyo jaadkaygii iyo deegaankii aan deganaa waxaan uga soo carareen qaxootigan kulaylkan iyo dhibaatadan iyo qaxarkan leh ee maalinkii aan la joogi karaynin cadceeda kulaylkeeda ama rafaadkan waxaan u imid waa cadowga Ethiopia ee kacabsigii iyo ka soo cararkin baan halkan u imid laakiin si aan nabadgelyo aan u helo baan